cabdicasiis ibraahim ciga oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Amuud Foundation maanta kula hadlay warbaahinta xafiiskooda Boorama ayaa isagoo ku hadlaya afka hay'adda wuxuu si dareen leh uga hadlay dhacdadii dabkii qabsaday suuqa Waaheen ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa wuxuuna sheegay inay ka hay'ad ahaan kaga qayb qaadanayaan in si degdeg ah loo caawiyo dadka hayntoodu liidato ee ganacsatada yaryar ee suuqaasi sidoo kale ay xukuumadda barbar joogaan isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisu waxay u dhignaayeen sidan marka Ilaahay baa mahad iskale marka labaad waxaynu ku guda jirnaa bishii barakeysnayd ee Ramadaan Ilaahay acmaasheeda inaga aqbalo khayrkana Ilaahay na waafajiyo maanta waxaan soo kin yeeray saxaafadda anigoo ku hadlaya afka hay'adda Amuud Foundation inaan idin la wadaago tiiraanyada iyo waxa weeyaan inay la wadaagto dareenkayga dhibaatadii ka dhacday suuqa Hargeysa ee Waaheen hay'adda Amuud Foundation waxay maalmihii ugu dambeysay ku guda jirtay arrimaha bulshada iyo dadka ay caawiso waxay ka hawlgalaysay dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan waxayna ka qaybinaysay raashinkii bisha Ramadaan ee ay ku afurinaysay dadka masaakiinta ee baahan Amuud Foundation waxay ka qaybisay dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan 5,000 oo qoys raashinkood teamkuna wuxuu ku mashquulsanaa hawshaas iyo dadaalka iyo xaaladaha baahi ee ka jira bulshada inay daboosho hay'adda Amuud Foundation markasta waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato arrimaha degdega ee ku yimaada bulshada sidoo kale hay'adda Amuud Foundation waxay ka soo qayb qaadatay abaarihii dhacay 2016 dhammaan Soomaaliland oo dhan ka dhacay duufaantii ka dhacday 2018 ee sagar ee dad badan baabiisay oo ay ahayd hay'addii ugu horeysay ee ka qayb qaadatay xaaladaasi waxaana kale ka qayb qaadatay ilaa 2021kii ilaa imika 2022 abaaraha jira ay kaalin xadli ka qaadatay haday tahay raashin qaybin iyo hadii ay tahay biyo dhaamis labadaba hay'adda Amuud Foundation waxay ku mashquulsan tahay imika inay ka qayb qaadato masiibadii ka dhacday suuqa Waaheen iyadoo uga qayb qaadanaysa laba siyaabood xafiiskayaga Amuud Foundation ee Soomaaliland iyo xafiiskayaga ku yaala Mareykan labaduba waxay ku mashquulsan yihiin sidii uga qayb qaadan lahaayeen masiibada ka dhacday suuqa Waaheen suuqaas oo ahaa mid saameeyay dhammaan bulshada ku nool Soomaaliland oo dhan waxay uga qayb qaadanaysaa hay'adda Amuud Foundation laba siyaabood midka koobaad waxa weeyaan in la caawiyo dadka danyarta oo si degdeg ah loo caawiyo dadka waxa weeyaan aan maanta waxay karsadaan haysanin wixii haysteena uu ka baaba'ay talabaadna waxa weeyaan inay ka qayb qaadato dib u dhiska suuqa iyo waxa weeyaan dib u cusboonaysiinta hay'adda Amuud Foundation waxay garab taagan tahay dhammaan bulshadii ku waxyeelowday suuqaasi hadii ay tahay kuwa waxa weeyaan wax yiri soo gaaray iyo kuwa ay dhibaato weyn soo gaadhay labadaba waxa kale oo garab taagannahay jamhuuriyadda Soomaaliland dadaal kasta oo ay ku jirto gaar ahaan waxaan barbar taagannahay maayirka magaalada Hargeysa oo ah maayirka ay isaga magaaladiisii dibtu soo gaadhay heliyo hoobo waan la garab taagannahay Amuud Foundation waxay ku talinaysaa in dadaalada la kala horeysiiyo hore loo taageero dadka waxa weeyaan danyarta ee waxa weeyaan ay masiibadu soo gaadhay marka dambena waxa weeyaan dhismaha iyo dib u dhiska iyo dib u cusboonaysiinta suuqii waxa weeyaan iyadana la dambeeysiyo hay'adda Amuud Foundation mar walba waxay diyaar la tahay inay kaalin mug leh ka ciyaarto dib u dhiska iyo waxa weeyaan caawinta iyo taakulaynta masiibadii ka dhacday suuqa Waaheen suxufi cisqi MMTV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal